aad dunida dacaladeeda ama daafaheedaba aad ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena kuna Kalson TV oo hada hanbeedi ka soo gudbino Kalson TV xarunta aan ku leenahay magaalada London daawadayaal barnaamijka waxaan soo gaarsiisaa anoo Kaltuun Musa Cabdilaahiya barnaamijkana waa barnaamij aad halkan doonaysid sanad ka gudbisatid haddaad doonaysid inaad halkan hambaliyo guur ka gudbisatid sidayna kale oo aynu wada qaadno barnaamijkana ma aynu ku wacweyno kolba subject cusub aynu halkan keenno bulshada ku xiran kuna Kalson TV na marka ay soo garaado iyaduna ay marka ay soo gudbiso kolba wixii ay doonaysid inay ugu soo kordhiso xagga heesaha ayaan u badanayo qof walba wuxuu markuu soo garaaco inuu halkan codkiisa ku tijaabiyo ama codkiisa safeexo oo aan music lahayn waxba lahayn oo diirka laga qaaday ayaan halkan ku haynaa kuna Kalson TV qofkii doonaya bal hadii codkiisa ogaado inuu halkan ku tijaabiyo fursaddaasna halkan ay ka furan tahay hadda sheekooyin aad iyo aad xiiso badan haysid halkan ayaad iga soo gudbin doontaa waxaan ku wada caawino kullee barnaamijkan waa barnaamij caaweysin weeyaan oo doonayaan inaan ku wada caawino habeen walba waxaan idin soo qaadaa ama aan idin keenaa miiska inaynu halkan ku wada caawino ama ku wada qaadano subject gooniya ama qiso gooniya oo aan doonayo inaynu dabatan halkan ku wada qaybsano waxaan idin wada waa jacayl kulleeyba qof walbaaba marka jacayl la yiraahdo hanqalku soo taagay wuxuu sheegay to jacaylka maxaa laga hadlayaa tolo jacaylka maxaa laga leeyahay kulleeyba jacaylku wuu noocyo badan yahay qof si buu ugu dhacaa qof uu mataqaanaaye uu darma galo qof uu la galo jacayl caadi uu ku dhaco qofka uu caadi u jecelaado iyo qof doonaya qofka inuu ku danaysto qofkii kale yacni uu ku soo jiito isla markaana uu jacaylkiisa ku meelmarsado marka qofna wuxuu u galaa qofkaasi maal buu leeyahay yeelkadiisa iskaba guurso qofna qofka kale wuxuu u galaa jacayl uu jecel yahay buu galaa marka jacaylkii waa kala duwan waxa jira dad age fara badan oo u dhaxeeyo ama da aad iyo aad fara badan oo u dhaxayso oo haddana waxaad arkaysaa isku habiyo isguursado isqaba sida aaladaha internetka oo kale ayaa waxaan ku arkay indhahay u qabanayeen odayaal 60 jira ama 70 jira ama 80 jiraba oo habla yar 15 jira oo caruurta ay awoogo u yihiinba ama kaba si yar ama labadaba guursaday oo ay inantiina uba eegtayba inay ku qanacsan tahay habi ku tahay sheekooyin aad iyo aad fara badan oo mataqaanaa iga yaabiyay yani qisooyinka caynkaas oo kale ama guuriyaha caynkaas oo kale na soo dhexgeliyay aynu indhaha ku qabanayno inaguna caadaynuba u leenahay haddaynu Soomaalina inaynu hablaheena yaryar ay odayaal ay badanaa guursadaan isla markaa iyaga oo eegaya xagga maalka eegaya xagga dunyada eegaya ayay hablaha yaryar 15 jirka oday 80 jir iyo 90 jir ayaa lagu daraya oo guursanaya dabatan waxa la leeyahay waa oorideed buu oranaya ama waa gabadheed buu oranaya ka xaysanaya marka uu la socdo waxay u eegtahay inuu yahay ilmihii awoogo ahaa ilmihii uu kii saddexaad uu noqon lahaa ayay la eegtahay ama la daatayba marka runtii waxaad is weydiinaysaa guurka caynkaas oo kale xageeba ku sadaysan yahay waa arrimahan doonaya caawa inay igala faalotaan oo caawa aad halkan igala hadashaan taas ayaan doonayay laakiin se intaan u gelin oo aan qadadka telefoonka furanin waxaan aad iyo aad u jeclaa inaan halkan hambaliyo uga diro dhalasho oo inan yar oo ugu dhashay Adnaan Abdi Saxardiid iyo xaajadiisa Hodan Maxamed oo shalay bay ahayd mulanaya magaalada London inan yar ugu dhashay inanka yar waxaanu leenahay anagoo isku wada duuban haddaanu nahay bahda TV-ga iyo haddaanu nahay friends-ka iyo haddaanu nahay family-go dhanba inanka yar Adnaan iyo Hodan u dhashay waxaanu leenahay eed ama hamar yar soo barbaar baanu leenahay kii dalkiisa iyo diintiisaba anfacan qobaanu leenahay Adnaan iyo Hodanna waxaan ku leeyahay hambaliyaan idin leeyahay ilaahay ha idin ka dhigo keedana anfaca dalkiisa iyo diintiisaba anfaca ilaahay idin ka dhigo aamin ayaa igu soo dari doontaan ba ila tahay waxa halkan inoo yaalay oo aan doonay inaan halkan idin kala qaybsado qisadii ahayd jacaylku wuu albaab badan yahay jacaylku wuu darbiye badan yahay laba qof baa jira oo isku jeclaanaya iyagoo aan maal haysanin iyagoo aan lacag haysanin iyagoo oo yani amti taagan oo xalaali waxa haysanaan jirin ayay isla markaana labada qof israacayaan isjeclaanaya isguursanaya dhexdooduna wuxuu ilaahay ka dhalanaya marka khayr buu ilaahay ka dhalanaya dhexdooda markaas labadii qofta ilaahay risaaqadii waxay qorayeen ilaahay baa haya qofna uma hayo waxay isku raaceen niyadsan
waxay isku raaceen qalbi furan, waxay isku raaceen dantoodii bay isku raaceen labada qof. waxaa jira dad baa jira dhigooda ah oo iyagu markay isguursanayaan isku raaca lacag isku raaca. gabadh baa jirta nin lacag ku raacayso iyadoo inan yar oo aad iyo aad u daayar oday 80 jir 90 jir lacag ku raacaysa oo maal ku galaysa. guurna waa kan iyagoo faqeera oo wax laalay waxa haystaan jirin dermo waxday doonaan dhulka ha dhigtaan be dee isguursanaya dermadooda markay isku guursadaan dabeetana ilaahay u barakeynaya ilaahay dee yacni wax walba uu siinayo ubad siinayo maal siinayo wax walba siinayo ilaa niyadsan bay isku guursadeen oo ma eegin maal adduun ma eegin yacni qalbigoodii iyo wadnahoodii iyo niyadoodii bay eegeen labada qof. labadan qof ee kalena waxay eegeen maal adduun bay eegeen. marka labada guur caynkaas oo kala markaas barbar dhigtid amba aad samaysid comparing aad ka samaysid maxaad isleedahay guurkeeba in badan soconayo survivor iyo oo mataqaanaa daacad lagu dhisay mise guurkeeba wax yani interest aan ku jirin. ka interest ku jira ilaa maaha guur survivor guur soconayo maaha in badan ma soconayo waayo waxaan way iska soo gogo'ayaan way soo yaraanayaan lacagtiina way iska soo dhamaanaysaa at the end of the day. qofkanina maaha qofaad niyadaada iyo qalbigaaga intaad ka keentay aad jeclaatay qofaad dan aad ku raacday bay noqonaysaa. marka guurka danta galaa waa guurarka ugu xun. iminkana waxa aad iyo aad inoogu badan guurka gala danaysiga gala ee la isku danaysto. badanaa waxaa dhacda in ay mataqaanaay ama inan ha ahaato ama inan ha ahaato qofkii uu doonayay inuu qofka meel ku gaadho ama uu ka dhigto jaranjar ka dhigto meel ku gaadho inuu yacni qiso yaroo beena iyo jacayl beena intuu u dhiso dabeetana uu yidhaahdo isla markaa dee wax caynkaasaan habastay baan ahay. qofkii kalena uu daacad ka tahay malaha uu moodayo de okay weeyaan malaha qofkan wuu ku jecel yahay buu is odhanayo laakiinse aanu waxaan jacayl jira aanu ahayn ay tahay waxaan been la soo dhisaya ay tahay isla markaana qofkaasi markuu uu dantiisii gaadho uu de odhanayo hit the road. maxaad markaa aad ka qaban kartaa wax alaale waxaad ka qaban kartaa ma jirto. markaa waxaa jira hablo fara badan oo inamo caynkaas oo kale waddanka intay kaga soo dhoofeen ay ku yimaadeen Europe ku yimaadeen isla markaana maalinta airportka kasoo degeen ay halkii isugu dambeysay aanay dib isu arag ayaa jirta. waxaa jirta hablo intay soo kaxeeyeen inamadii soo dhoofiyeen oo ay keeneen qorbaha keeneen isla markaana afaarahoodii iyo danahoodii intuu dhex galay dabeetana isla markaana uu isku dayay inuu dhaawaco inuu dacweeyo inuu yacni afaaraheedii hoos u galo kabacdina ay isla markaana halkaa dee guurkiinu ku baaba'ay qofkii kalena uuba dhibaato mutaystayba iska badaa jacayl uu sii wado iyo guri uu dhisa iska badaayo isagiina uu dhibaato sii mutaystayba uu dhibaato gaadhay. waa guurka danaysiga ku yimaada ayaa weli aan ku dhex soconaa oo dhibaatooyinkaas oo dhan ay ka yimaadaan. dhigooda waxaa jira inama iyaga laftigooda waxaa jira dhigooda oo daacadahoo dee doonaya qofkan inay guri dhistaan oo guri xalaal oo socdo ayaa markay tagaan waxay soo helayaan gabadh bay soo helayaan. gabadhii markaa wuxuu isleeyahay dee ninkan gabadhan way ku jeceshahay wayba ku guursato dee waa gabadhaadii markaa dee wuu qalbi furan yahay wuu laab xaadhan yahay wax walba isla markaa dee gabadhi wuu mataqaana ugu deeqaya wuu soo kaxaynaya wuu keenaya wadankii buu keenaya yacni wax walba dee gabadhiisii weeyaan ismana lahaa kamana filayo ayaa xumaan kaaga soo baxaysa. sidii oo kale ayaa mataqaanaay ay dee iyaduna ilaa danteedii bay ku gaadhay oo mayba u jeedinba ninkan may jeedin waxa u jeeda fiis iyo baasaboor bay u socotay fiisi iyo baasaboorkiina de halkaas uu ku baabaa. markay meeshay timi fiisi iyo baasaboorkii shayda mar waxay uga baahan tahay baaba iska baasaboorkii iyo wixii gacantay ku haysataa xaajiganu marka laguma baahno weeyaan waxa waa la gaadhay dantaadi waa la gaadhay. qisooyinka caynkaas oo kale ee foosha xun leh ee saa yacni inugu soo warwareegaya ayaan caawa aad iyo aad u jeclaa in aan mataqaanaa halkan ka wada hadalno oo aan ka falaaqono. hablihii waxaa wada galay shaki runtaan idin sheegayaa inan walba markay ay istiraado guurso ama inan walba markuu istiraado soo guurso oo dalkaagii hooyo tag oo soo guurso shaki baa dadkii wada galay shaki baa ku jira dadkii qof walba wuxuu leeyahay tol qofkan inuu doonaya inuu dangaadho. marka hadda eego dhibaatadii already way bilowmatay meeshiina way jirtaa dhibaatadii waxba yaanaynu maxaan hadalka hoos u dhigdhigan waxba yaanaynu gagabanin waxba yaanaynu hadalka qarinin hadalka aynu shaaca ka qaadno. dhibaata kala haysata dadkii qurbaha ku noolaa iyo dadkii wadanka ku noolaa dhibaata kala haysata oo dadku isku baahan yihiin
ويسأليهن وقربينا وجعلي dadkoodu wadanka joogay maxaa markaa interest-ka iyo dhibaatada meesha taala maxay tahay maxaa meesha keenay markaa waaba dadkan u dareemayaan in qofkan mar walba uu dantiisa ku gaarayo oo hadhow toolan ku dantiisa gaaro aanu damba kala hayn u leeyahay daroor waxaan kaaga baahanay iska yar miyana wax fawxun ahayn oo aanay koow ahayn oo aanay laba ahayn oo aanay saddex ahayn oo ay soo noqnoqotay how many people baan garanayaa inta ay dadaaleen oo ay yacni shaqeeyeen oo ay naftii ka baxday oo ay dawladna waxay qofkay doonayeen soo kaxeeyeen oo ay keeneen ka bacdina ay dhibaatada caynkaas ku dhacday lagu yiri daroor iska tag lagu yiri miyana dhibaatada aad iyo aad u weyn ahayn waxaas ma jacayl maaha Soomaali jacaylka inaan soo barataan ba fiican qofkaad jeceshahay qalbiga iyo laabta inaad u furtid ba fiican ha ku gelin yani baasaboor busita ha ku gelin lacag busita inta hadad ku gashay dabatan la sabtay qof ma tiijira qof jira ma tiid inaad adigu wadnahaaga iyo qalbigaaga aad raacdid ba qurux badan istiraadto qofkan adigu ma rabtaa ha niyadaad ma rabtaa ha adigu ma jeceshahay ha dabatan saasad ku galaysa qofkii laakiin hadad qofkii ku gashay qofkani interest ba kaaga jiro wuxuu sitaa lacag busita baasaboor busita ama qofkan inta yahayba ama qofkan qof waalan bay yahuudu dawooyin jabadaha ku sita ama uu dhoofi ku kaxeeyaba uu ku dilaaba guriga ku gooraaca maxad ka ogtay wax la xad ka ogtay ma jirto marka dhibaatooyin caynkaas oo kale ugu dhiinu deena u fiirsataan iska eegtaan ba qurux badan qurbuhuna inuu iska eego oo u fiirsada qurux badan labadiina marka dad fara badan bay weydiiyay dad fara badan ba message caynkaas oo kale ay soo diray dadku aad iyo aad bay u jecelyihiin wax reality-ga ee dhaca in laga hadlo oo laga faaloodo waayo waxan waa wax mar walba inagu dhacaya oo adiga hadaan kugu dhicin qof kale ku dhacaya oo friendkaaga ku dhacaya oo inagu wada dhacayo oo aan ognahay weeyaan Soomaaliduna say u badan tahay badana waxa reality-ga dahbay saartay kama hadasho oo iqarisa I don't know wax loo qarinayo ma garanayo dhibaatadii meesha haday taalo oo la doonayo wixii in meeshii dhibaatadii laga hadlo oo laga faaloodo de waxa aad iyo aad qurux badan qof walba marka inuu de wuxuu tabaniyay uu meesha soo dhigo ya marka lagu geynayo meelaha lagu wada hadlo qofna dhinaca miska ka soo fariisan qofna dhinaca miska ka soo fariisan counselor te waxa lagu weydiinay waxa lagu leeyahay maxaad go'aanaysaa dabatan waxaad go'aanaysaa wad miska soo dhigaysaa qofka kalena waa la weydiinay waxaad go'aanaysaa dabatan wuxuu go'aanay miska soo dhigaya waa la sii eegaya dabatan problemkii sidii loo xalin lahaa ayaa dabatan miisaan la saaray waa la sii eegaya problemkii marka problemka inaga hadaynu Soomaali lahayn haysta mar walba waxaan dhahnaa waxa waa ceeb laga hadlo dahbaynu saarnaa qarina maadaama dah saaris qabanaysa arintiina way sii soconaysaa continue soo soconaysaa marka intaas oo family iyo intaas oo mataqaanaa ayay baabiinaysa oo ay qaribaysa meelaad ka qabatidna ma lahay labaadigan aamusay yir kama hadlaya marka waxaan wax reality oo jira weeyaan dad fara badan ba ay soo weydiiyay dad fara badan ba iga soo codsaday oo igu yiri arinta caynkaasa ayaan jecelnahay inaad ka hadashid dhibaatada caynkaas doonayna inaad ka hadashid waxa jira waxa guurka uun ka hadlayna iyo jacaylka ayaan ka hadlayna jacayl markuu yahay uu jacayl daba yahay ma galo interest ma galo lacag ma galo yani ma galo qofkan tar waxa ma haysta qofka qacda aragtid ee aad ka heshid ee kaaga dhacdo yani hadad aanad shilin haysan gidaarka uu jifo wad ku jeclaanaysaa gidaarka uu jifo wad ku raacaysaa wad ba jeclaatay qofkii laakiin hadaan qofka jeclayn hoos bad eegaysaa ka xiran yahay bad eegaysaa shaarku xiran yahay bad eegaysaa wuxuu haysto bad eegaysaa jeebadiisa eegaysaa kolbood daalacaysaa tan muxuu kulay bade hadad aragtid marka qof wax daalacayo wax egeegayo yani noloshii xanada fara badan ka galgalay hadad aragtid qofkaas qof jacayl haya ma ahay waa qof interest u socday weeyaan in dhaha tagtaagay waa qof interestkiisu uu aad iyo aad u xeel dheer marka iska ogaada waan leeyahay jacaylka danaysiga gala iyo jacaylka dhabta ah hala kala saaro marka sidii loo kala saari lahaa ayaan caaw halkan u fadhiyaa bal inaa qadka telefoonka soo gashaan isla markaana bal iga soo jawaabtaan sidii loo kala saari lahaa jacaylka danaysiga gala iyo jacaylka dhabta ah labadaas ayaan doonayaan kala saaro si lagu kala ogaado waayo dad fara badan baa u baahan in ay iska ogaadaan oo ay iska qabtaan yani qofna ma jeclayn dhibaato ku timaado qofna ma jecla in uu la kulmo dhibaatooyin caynkaas oo kale ah marka runtii aad iyo aad baan jeclahay inaad igala qayb qaadataan oo qadka telefoonka hadda leenka uu furan yahay waa soo geli kartaan wuu idin furan yahay leenka telefoonka waxa jirta sheeko yaro saas oo kale oo kooban oo aan doonay halkan idila qaybsado waxa jiray family waxa jiray family
dee isku soo qabayba wadankii waaba family wadankii isku soo qabay ninku markaa waxaa la yidhi wuu ilaa ishan muuba haysan ishan way maqleen ninka wuu ilaa marka ninkaasi maxay tooyeen xaaskiisa 9 caruur ayuu ka dhalay markuu wadankii joogay oo daninta jiro ahaayo lacag haysto oo maal laho maxay too de laga dambeeyo oo markuu guriga soo galo de 19 qof soo garab cararayaan oo hayayde marka cidnaba ninka ma soo ag fadhiisan jirin cidnaba soo ag mari jirin ninkaas wadankii buu ka yimi halkan uu yimi uu soo dhoofay markuu soo dhoofay ayaa de lacagtii wixii la waayay de markii ugu horeysay istirada wayba gabadhiisii 9 caruur u dhalay waxay aragtay kaliya waxay ahayd arrimihiis ishii oo maxaa horta kaaga dhacay oo maxaa caynkan marka de eeg ma gurkaas ku dhisnaadan qadka telefoonka ku jiraan qaban doona hallo assalaamu calaykum hallo السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله لا أدم كوسة دويني أنا كوسة سلامي حاجة دي بس عليسا ولا الوقت سلامي يا أدم كوسة سلامي يا والله حاجة دي بس عليسا ولا الوحكة سلامي يا سويدن ما دي بس عليسا ولا لما عاجة ولا الوحكة بقى عاجة خضرة قدرة أو سويدن جلسة عليسا قدرة ولا أدم كوسة دويني ولا لما عن أو محد عشان نقول قيب قاعدتي جعل كاسة دي قالها لله ما هالكو هاس وقع يقصين لهاي مسلم باتدي سودو دي waxaan ka hadlaya walaalay jacaylkan ay sheegaysid waa waaqع waa runta صح halo صح ولا لا صح أبا وحماهاي قدرة وكجاي تلفون كاسي لكن ما حنلاقيها دي بدو سنة قدنا إن شاء الله ما كان صوت رجلي قد كاكو حاجة أيام قبضنا هلو السلام عليكم هلو عليكم السلام ولا لهم السلام يا ونك سود وينها وكم قدر ولا لا أدبن كوسو دوينها تفيق إسكاير قابي حق دكت إجلس أو ما قاعد يشك ولا ملاعي واحد عبد الله أحمد عبد الله أحمد هو الحقيقة جلس على لسه وحكى صار ولا الجرمة عبد الله أحمد وشرم كي جلس على ولا الأدبن كوسو دوينها عبد الله وعاو محد عشان قال لك يبقى قاعدتين waxaan kala qayb qaadanaa horta barnaamijka waan la socday laakiin waxaan ka sameeyay ma jirin يا ولا لا barnaamijka horta muxuu ka hadlay ma jacaylku ka hadlaya تعالك ها adduunkan inta jacaylku ka dhamaaday wax jacayl la yiraahdo jiraado ma jiraan waa jacaylkii hore waa dad hore عبد القادر وأديك ولا لا أنا هالسؤال كويديو waxaan ka hadlayay aan Sweden jacaylka dhabta ay jacaylka danta ku jirta la isku dhanaysanaysa ku kala saari lahayd adigu horta waxyaalo badan oo lagu kala saaraya jira laakiin iminka indhaha asxaabtu ku dhaqmasa wax aan ku kala saarado ma garteenba anigii waa wixii hagaba baryahan dambe u baahanba marka adigu sideedaad marka qof inka wada la kulantay wuxuu ku yiri ku jecelahay midna dhan buu rabaa midna jacayl dhab uu socday ku kala saari lahayd waxyaalo badan baan ku kala saari lahaa aan dhigi lahaa laakiin ilaa calafku intuu imanayo jacayl aan aaminaynba waan afkaan baan u macaaneyn lahaaba calafka qaar baan jacayl baan ahayn calafka qaar baan anigan kuu sheegay ku lahaa calafka qaar baa dhan isku galay isku guursanay hadana dartii markay dhamaato waa la kala tegaya marka kaasi jacayl baa may taas jacayl maaha calaf baa la iminka xiisaha baa isku guursadaa bade sanadan daba yaa isku guursadaa jacayl iyo waxa waa toddobaad baa la isla socdaay markaa toddobaadku dhamaadana waa caadi sukar baa lagu raadin marka maxaa leedahay mato xiisa toddobaad la isku guursadaa markuu xiisahaasi dhamaadana waa khalaas inta taasaan oran lahaa talabaad waxaan oran lahaa barnaamijkaas si fiican baan u fahamsay markii hore waanan caadi baan u kala saarin bal carabka nooyarku baan oran lahaa si aan ku fahamnade aad baad umahadsan tahay walaalo cabdullaahi aad baad umahadsan tahay kolley waxaan ka hadlayna barnaamijkeena ku naso Carlson TV kolleyba wax alaali waxaad doonaysid ayad Carlson TV halkan aad nala qaybsan kartaa laakiinse caawa jacayl baan ka hadlaynay hallo assalaamu calaykum hallo qadkaas wuu ka baxay hawada aad iyo aad baan uga xumahay daawadayaal waxaan idinka aan doonayaa
barnaamijka marka ay soo garaacdaan ama aad qadka telefoonka soo gashaan horta marka ugu horeysa TV-ga iska gaabiya si aan aniga ii maqashaan halkan uga wada socono marka labaadna subject aan ku hadlayno hadduu yahay oo aan fahmayno barnaamijka aad soo gashay marka ugu horeysa waan la socota barnaamijkeenu inuu yahay barnaamijkeeni halkan haddaad doonaysa inaad salaan halkan ka gudbisatid haddaad doonaysa halkan inaad hambaliyo guur ka gudbisatid haddaad doonaysa halkan inaad sheeko caadi oo aad hayso noo soo diyaariso doonaysa inaad nala qaybsatid waa warka mooyaan waad nala qaybsan kartaa sheekooyinka kale iyaguna xiisaha badan leh iyada laftigooda halkan waad nooga soo gudbin kartaa marka barnaamijku waa barnaamij madadaalo wacyigelin da wax walba isugu jira weeyaan marka uu aad buu ballaaran yahay aad buu baahsan yahay marka ugu horeysaba inaa la socotaan oo daawataan oo fahantaan ka bacdin ay soo gashaan telefoonka ayaan aad iyo aad u jecelahay aad baan dhabaantii idin salaamaya waxaan doonayay inaan ku yaranasano clip yar oo aan ugu talagalay inaa caawa halkan igula qaybsataan clip yar idinma odhanaye waan idin sii sheegaya clipka wuxuu yahay ka waran haddii lagu yiraahdo quruxdii adduunka ayaad weyn garaysay ka waran haddii lagu yiraahdo oo lagu sheego weliba lagu yiraahdo inta lagu yeedho dee stagekii lagu yiraahdo adigaa winara haddii lagu yiraahdo oo intaasoo dee milyan oo lacagii kugu jirto oo dee futurekii o dhan aad halkaa muraayadda kasii aragtay minidkaad meesha taagan tahay muxuu ku jira maskaxdaada maxaad ku fakeraysaa maxaa aad maskaxdaada ka guuxaya qof caynkaasoo kale intaad iska soo qaadid minidda intaad halkaa taagnaatid adoo futurekaagii o dhan dhistay minidkaa ku dhistay kabacdina lagugu yidhaahdo inta lagu yeedho sorry khalad buu ahaa waa lagaala noqday qof kale la siiyey maxaad dareemi lahayd kilib caynkaasoo kale midinhaya Mrs Wall oo laga qaaday quruxdii inta la siiyey weliba haddana laga qaado lagu yiri mistake baa qof kale la siiyey ayaan doonayaa kilibkaasaan doonaya caawa in ay igula nasataan oo ila daawataan kabacdina waa isku soo noqonaynaa qaadadka telefoonka halkaas ay nooga furan yihiin isla markaana gabadhii dhammeyd isu diyaarisay ee faraxday ee badbooday ee ooyday ee futureka dhisatay ee secondka halkaa taagnaydee nolosheedii oo dhan usii samaysay qaabkii u maarayn lahayd lacagtay qaabkay nolosha u maarayn lahayd oo isla markiina inta laga qaaday layiri gabadh kalaa lehe adigu malaheeda aad baan kaa uga xunaa aad baan uga xumahay qadka telefoonku wuu furan yahay daawadayaal waxaan aad iyo aad u jecelahay marka ay soo gashaan qadka telefoonka soo gashaan inaa halkoo hees iga qaacsiisaan haddii aan idin qiso jacayl sidin dabeetana waxaan idinka rabaa dee hees baan idinka rabaa qiso jacayl waxay bedelaya hees bay bedelaya caawa wax kaloo caaway maraya ma jirta hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal aad baan kuu salaamaya kusoo dhaweynaya xagad gala soo hadlaysaa waxa weeye programkan meesha ka socda waxaad moodaa inuu yahay program copy ah oo gabar hore waxay suubisaad moodaa inaad meesha soo dayso aad iyo aad waad umahadsan tahay aad baan kugu mahad celinayaa haddii aanad waxba sidin oo aanad waxba anaga halkan nagala qaybsanaynin ama aanad idea nagu soo kordhinaynin aad iyo aad baan uga xumahay dad fara badan baa qadka ku jira telefoonka in aanad qadka telefoonka aanad busy ka dhignin aad gurigaaga iyo arrimahaaga aad ku eekaatid baan aad iyo aad kaaga waana gelinayaa hallo asalaamu calaykum soomaalida jecel ma garanayaan jecel baa dadka waalay haye magacaaga ii sheeg marka hore aad baan uga xumahay soomaalidu jecel ma garanayaan jecel baa dadka wada waalay ma xabadda inayna ku xejiseen aad baan uga xumahay wuu ka go-ay qadka telefoonku qadka telefoonku wuu furan yahay dad fara badan waxaa jira qadka telefoonka ku jira maadaama haddaanad adigu aanad wax important sidin oo aad nala qaybsatid markaa iska daa dadka kale qadka ha ka biisi garaynina hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أد بان كو سلام يا ولا حاجات قلت عليسا بانك السلام يا ولا محمود جامع قلتون محمود جامع وكمني قلت علي محمود جامع أد بان كو سلام يا ولا لو كان قال وايد الدواء اللي سواي وقتي الاسبوع ليل ويلي سو ما عرفت محمود جامع بريهم كمان مقالين ما عندنا شغله كو بدتاي ما يدي قلتون دي بارو دحدي aad ba dib ugu dhaxday buugta waa waqtiga isbedelay weeyaan mataqaanaa winterkii waa kan samarkii iska bedelay saacadiyo hadda soo hormari lahayd waa kula soo hadli lahaa laakiin de hadda markasta kulley anu markasta taageeraan ku hay kaltuunay waad mahadsan tahay walaal maxamuud aad baad umahadsan tahay aadna waan kuu soo dhaweynayaa ii waran caaw maxad jaashaan digala qayb qaadatay yaa walaal waad mahadsan tahay runtii dee arrimaha jacaylka iyo maaragtay dee soomaalidaas aan u daynaya anigu laakiin de anigu hees baa dalbato heestii bal dalbatay war maanta
وادي ريس waxaan haddana arrin jacayl sidii waa inaad heesiisi daalada midna baa maraya ها ده انا واسكت سيدا وقتها soo daa walaalo soo daa wanaga adiga soo daa عاو يان كسارة دي عاو كسارة يا أحمد علي رجال يا سلام هلو ها وku maqlaya maxamed waad ku jirtaa walaal waa ku maqlaya haye mahalkii dharaartii casarkii mamoodiga dad hargeysa soo maray hadiyad kuugu dhiiba markii ugu horeysay haleelay caashaqu mahalkan fadhiista miyanigoon qabin haweenanigoon raabin heestuu iga yeedha eebankii taariikhdee daran maalintii dhaaftee bisaacaday tahay hayo maalkii lay helaaye ba isku soo hagaage ma markaan hawoode inta geenya ugubo ee ku shakaalan dooxada hiyigaygu raaci inin helaa nasiib le heesaha dul saare rabbigu hagaaja ma hoosis qaboobo amiyanigoon qaabin haweenanigoon raabin heestuu iga yeedha eebankii taariikhdee maalintii dhaaftee bisaacaday tahay hayo maalkii lay helaaye ba isku soo hagaage haye kabti waa ka baxay aad baa umahadsantahay maxamed jaamac hees aad iyo aad u qaaliya ayadii qaaday axmed cali cigaal aad baynu salaamayna aadna aad baan kuu salaamaya aad baad umahadsan tahay aniga qudhayda ayaa caawa inaan dhowr jeer soo garaacay oo Germany soo garaacay mala 3-4 jeer mise Holland ayaa igu yiri hees baan ka codsaday hees iqaad hees baan doonaya inaan qaadid marka anaa doonaya caawa inaan hees idila qaybsado beejka hore laakiin lama wada dhamaan karaan si maxamed miya xarif ma yimaado heesaha beejka hore ma ka qayb laakiin ka dambe way gooya gas marka ka hore baan la qaybsanay qadka telefoonka ku jiro aan si doona chance ka assalamu alaykum لا قد كانت الفونكم وقعي وين دافي وانا ذيك شيء waxaan ku hada hees aan idin sida qisaj caalay sida marka labadaas uu bacaaw meesha marayo murankii kale meesha uu ka baxay wacyi gelintii kale meesha uu ka baxday waxaas way ka baxday waa jacayl iyo hees labadaas bay maraya caawa marka aniguna heestii aan doonayay inaan page-keeda hore na qabsado waxa qaado yeelatay hodan cabdiraxmaan baa qaada bal hadana halka isku tijaabiyo hadaadkayga inuu marayeen kale hay heesti waba iga aniga heestiga baxday jacayl way jiraysto jiradiga la boodo waxaan jeedinka mariyo anu diiday jiifkii sorry codkayga malaha waxaa isku ka xidhay xayaabka isku ka xidhay bal haddaan ku celiyo mar labaad jacayl bay jabaysto jaradiga la boodo waxaan jeedinka mariyo anu diiday jiifkii jawareer kanan qabo jiraayigu si darin jalaadalka igada
igadaa maqdimaayo joogde jecel hadalka igadaa maqlimaayo joogde maxaan kugu jawaabaa jabsigayga mooye miyan duniba joogaa maxaan kugu jawaabaa jasmigayga mooye miyan duniba joogaa miyan duniba joogaa maxaan kugu jawaabaa jasmigayga mooye miyan duniba joogaa maxaan kugu jawaabaa jasmigayga mooye miyan duniba joogaa miyan duniba joogaa intaasay iga eg tahay waa jawaabtii waxa weeyaan inankii 3 jeer soo weydiiyay igu yiri heesta ay qaad heesi qaad buu igu yiri laakiin tan aan iska choose gareystay hodan cabdiraxmaan baa qaada in kastaan heesta midheeda si fiican wada haynin abeen ka raali gelinay qadka telefoonka dug jiro hello assalamu alaykum hello qadka telefoonka waxay la tahay inuu go'ay dawadayaal waxaan idinku yiri haddii aan idin jeclaysiin waa inaan heesiisidaan marka heesiga jacaylka labada badan aan halkan idinka fadhiya dad fara badan oo waxa jira qisooyin fara badan oo jacayl haya oo caynkaas oo kala oo sheekooyina ama ay adiga kugu dhacday ama qof kale ku dhacday waxa aan doonayaa in intay soo garaadaan dabataan halkan aad igula qaybsataan yani waxay idinku dhacay haddii aan idinku dhicin freegiina ku dhacday ama family-giina ku dhacday ama waqtiba maqasho lagaga sheekeeyay way jirtaa sheekooyin caynkaas oo kale oo fara badan way jirtaa waxaan doonayaa inaan ka reebano aynu kay halkan ka dhigano way qofku sheekadiisa sidoo hayo buu la dhimanaya marka waxa fiican inaynu reebano oo fiican sheekooyin fara badan oo waxa jira ka qoslinay oo iyada laftigoodu jacayl laakiin ka qoslinay baa jira wiigi hore waxaan arkay oo aaladan aan ku arkay internet ku arkay oday aad iyo aad weyn oo inaan guursaday oo qisadii markaan dib u raacay aan dib in qisadii aan u raacay in la igu yiri de jacayl dhab uu ahaayo inuu odayga iyadaaba doonato iyada odayga inta jeclaatay oo laga reebi waayay lagu yiri marka qisooyinka caynkaas oo kala hadii yani qeyr xad oo aad iyo aad weyn maaha age yar maaha waa adigu inan yaro 20 jira iyo oday waxa weeyaan ilaa markaan qiyaasay 90 meelaha aan ku qiyaasay weeyaan oo ay waliba inantu iyada odayga jeclaatay oo arjigeedu qortay iyada ay doonatay hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum عليكم السلام ورحمة walaalo aad baan ku soo dhaweynaya aadna waan ku salaamaya xagga digala sahlisay magacaaga magacayga waa daahir jarmalka wiil walaal magacaaga maxaa la yiraahdaa daahir cabdi oo ka soo wacay wadanka jarmalka daahir oo wadanka jarmalka iga soo hadlay daahir aad baan ku soo dhaweynaya walaal ما شاء الله هذه سبب ولا أدبن كوس سلام عليك ده هاش برنامج كالسن تيجي aad baan ku salaamayna aadna waan ku soo dhaweynayna caaw maxaad cadshaasha nagala qayb qaadatid ma hees badii siday ma jacayl badii siday soo dhawaay سفي عن هاس جعيل لهم كوسي ده ما شاء الله مره هذا يلحن كذا بان قاعد سميه عن كوسي ده مرة heesta mada sameeyay baad ugu tiri walaal codkaaga in yar kor ku yara qaab saxaga farsamada weeyaan heesta أنا قاعد سميه لحن كان أنا قاعد أعرف فهمت waaw de marka waxa tahay malafanaan walaal hallo سفي fanaan baa tahay hallo غير لكن ما كعج لو بيقولوا كشيت walaal ma codkaagu iga yar tagay ma xagga farsamada mise waa xagga telefoonkaaga weeyaan ma kala garan karo laakiin codkaagu iga yar tagay walaal mar iga yar tagay aad baan ku soo dhaweynaya adiga iyo heestaada iyo laxankaaga iyo midhahaaga samdaan aad ma samaysan مرهنا أنا قاعد سميه لحن كان أنا قاعد ساري ما فهمت haye ba soo daa walaal aan kula dhageysta aniguna inta ina daawanaysa bulshooyintu hayna dhageysateen إلا أنتم مركو أنت معود بدنا أديكو ترين تبي بتوكو درايان دبره ترببي هتبكو دقايان تدواتنيني تربة ما دقتان ألقاتو ميو أو تمني هيجي أولولي
dahaboy damacba ku qaade dainkay ilaahay dunidan intuu dhigay dooqaas ku raashe alla daa'im weeye adigoo duruuf qaba anigoo itaalkii oo ayadiinku waan yahay ayaan arki doonaa adduunyada waxay tahay iridaadka gashiyo iridaad ka baxde amaad ii ilmaysaa ana aanan oynayn taasaan kusoo gabagabeeya wala macaan ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عاد نود عد معان تاي دير يدي لحن كنا هذا وسمستو فنان باتي والله عاد بنكو سلام يا عاد نوكو مهد علنيا walaal macaan sidoo kale adigana aad baan kuu salaamayaa aad bad mahadsantahay walaal aad bad mahadsantahay eraya aad u macaan weeyaan iyo hees aad u macaan weeyaan laxanku aad buu macaan yahay aad baan kugu hambalyeynaya aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya waxa daahir iga saaday Germany oo de ad arkaysan codkiisi iyo erayadiisi iyo milihiisi iyo laxankiisi inta wad maqlaysan sidaas kale aan idin ka rabaa marka alleenka telefoonka soo gashaan haddaan idin laxankiini iyo milihiini iyo muusigiini aan idin isla sidan de marka ka soo tuuro heesii hore way sidee YouTube-ka dib u garo heesii hore ka soo tuuro leeyahay qadka telefoonka mana ku jira hallo assalaamu calaykum hallo kuma jiro way inta qadka telefoonku daawadayaal aad baan ka raaligelinayna qadka telefoonku haddii uu toos idinku soo gali waayo ilaad xagga farsamada ah darteed aad baan ka raaligelinayna laakiin waxaan leeyahay mar walba isku daya oo ku soo celiya in uu idin soo galo waxaan ka hadlaynaa qisadii jacaylkeenu ka hadlaynay ku guda jirnay qisadii jacaylka ayaynu ka hadlaynay dadka intay soo garacday badan imika jacaylka way hadal sidii lagu weerariyay laylaha jacaylka ka hadal jacaylka ka hadal jacaylka ka hadal dad fara badan ay soo codsadeen aan rabay inaan jacaylka uga hadalno iyo sidana u qabteen jacaylka uga hadli weydeen ayaa mada islaamba marka waxaan idinka baahnaa in aad ila anigan jacaylka ka hadlay idinkuna ina qisooyinkiini iyo jacaylkiini intiiba soo gudbisaan bay ila tahay dhamaantiinba oo isku duubanba aad iyo aad baan salaamaya imkana qadka telefoonka ayaa ku jira aan jaan siin doona hallo assalaamu calaykum hallo hallo assalaamu calaykum عليكم السلام كابتن محمود ويرا كسو نوده walaal maxamuud aad baan ku salaamaya aad waan ku soo dhaweynaya soo dhaw walaal mar labaad waxaan u soo noqortay inaan ku hambaliyay hees cajiib ah qaadi caawa waan wareey ya oo miyay hayd maxamuud oo daaday maqlayay madi hambaliyay mise meesha waan qaribay adba ku dhacay kaltoon de waa tibaash waa ila stage ana adigu soo jibina weeyaan adigu waasha waa had batay tobe ya marka dambe markaad heesta soo qaadayso maxamuud oo ii soo diray page-keeda kale anaan kula jiibiyay xagga laga soo diraa baagro markaa soo diraya ha hay insha Allah waxa goori ha ay walaal de marka ay heeska ma ku qaadaa de bise waa ama isku filan caawa soo baanidi heesta dadweyne sidaas anu kula jiibiyay bal soo dooro dembiya teemad garanta Ahmed Gaayta ka wara sooda okay inkastoo hayada inkastoo naan waayadan wajigaaga imaano wadadiina soo marin walacaagii kama tegin wadanaha jidhkaygiyo sidadiigu weyntee ilama wardheeriyo kiwebi ka soo gala ama badaha waaweyn aadan ka waraysta inaan weli ku jecelahay weydii dadkaba qaar inaan weli allah inaan weli ku jecelahay weydii dadkaba qaar daran inkastoonan waayadan wajigaaga imaano wadadiina soo marin walacaagii kama tegin wadanaha jidhkaygiyo
sidadiigu weyntee adduunyadan wareegtiyo hayfka waxaa ku nool dumar weyne umay aadan ka waraysta haynaan weli ku jecelahay kaltuure weydii dadkaba qaar inaan weli allah inaan weli ku jecelahay weydii dadkaba qaar maasha allah ta heesta anigu beejkada kulama qaadi karaya laakiinse anigu waxaan kuu qaadaya hees kalaan kuu qaadaya ka waran maxamuudow haye sooda oo ku jiraya qadkare haye hees kale waxaan ku qaadayaa ay saaxiibaday qaado idil barkad qaado kolleyba anigu malaha heesahan dambe ee muusigooda la cusboonaysiiyey dhalinyarto ay qaado malaha badana aan deg deg u qaybaayan deg deg indhahooda u qabtaaye idil baa qaada heesta waxaa la yidhahdaa mililica jacayl naftu maalin qudha kama maarantee sida mawjadu maankayga iyo maskaxdee qalbigood dhex maquurtayood igu maqantee meeshaad ku taalaanu muujiye ruuxiga midoo ruux aanu qambaad kaltuun waad maraysaa de wallahi waad baqaysa hadda ugu dhacay aad baad umahadsan tahay maxamuud jaamac aad iyo aad baan kuu salaamayaa aad baad umahadsan tahay iyo maxamuud jaamac iyo inta Germany ku noolba aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiin baad baan salaamayaa saas oo kale ayaa loo rabaa maxamuud jaamac meeshu waa la enjoy garanayaa barnaamijkan waa barnaamij lagu talagalay heeso sheekooyin farxad lagu talagalay de iyo in lagu enjoy garayo baha barnaamij lagu talagalay yani in siyaasad iyo waxyaabaha laga hadlo maaha marka qof walba oo faraxsanooba laanka telefoonka soo galaysaa habeenkan waa lagu enjoy garanaya meesha hallo assalaamu calaykum hallo assalaamu calaykum aad iyo aad baan uga xumahay qadadka telefoonku caawa way isgoynayaan I don't know waxay isku goynayaan ma garanaya laakiinse waxaan ku jirnaa sanadkii dabayaaqadiisa ayaan ku jirnaa sanadkii way naga soo dhamaaday 2015kii waxaan ku soo soconaa 2016kii baynu ku soo soconaa halkan waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inaan halkan uga gudbiyo yani in ilaahay sanadkaas sanadkiisa uu ilaahay bash iyo barwaaqo uu ilaahay nagu gaarsiiyo inkastoo ayaama ay ka hadhay haddana ayaamahaasaan sugi kari lahayo dee ilaahay hay nooga dhigo sanadkii khayrka qabay kii horena ilaahay shar iyo khayr wuxuu lahaaba halkaas uu nagu dhaafay ka soo socda ayaynu rajaynaynaa inuu ilaahay nooga dhigo kii khayrka qabay kii ilaahay dalkeena nabad inooga dhigi lahaa kii ilaahay qalbiyadeena isu salaaxi lahaa daawadayaal aad iyo aad baan ugu xumahay barnaamijkeena kuna sakalsan TV caawa inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa laakiinse waxay noo ahaan doontaa khamiista dambe insha Allah iyo happy new year kana kulliba si fiican baynu halkan ugu wada qaadan doonaa insha Allah ummadda inta ku xidhan TV-gan ama ku xidhan inta barnaamijkan kuna sakalsan TV inta soo gashay iyo inta doonaysa nala saadasho iyo inta la socotaba intaba aad iyo aad baan u salaamaya anoo kaltuuna ayaa sanan aad iyo aad u qaali hawada halkan ii soo marinaya aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhinaca farsamada iyo fadhiya engineer Cadaawi ayaan u mahadcelinayaa waa anoo kaltuuna idinkaga tegaya inta aynu dib ugu kulmi doono hawada. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.